muddadii 5 sano ahayd ee Hon Cumar Macalin Cumar Saalax uu ahaa xildhibaanka deegaanka Mandera East, waxaa deegaanka laga hirgeliyey mashaariic badan oo taabanaya nolosha bulshada, kuwaasi oo diiradda lagu saarayay waxbarashada, caafimaadka, biyaha, korontada, beeraha, amniga iyo adeegyada dowladda. Markii uu xilka la wareegayay sanadka 2017, Mandera East waxay la tacaalaysay caqabado badan oo ay ka mid yihiin adeegyada bulshada oo kooban, fursado waxbarasho oo yar, iyo baahiyo weyn oo dhinaca caafimaadka iyo kaabayaasha shaqaalaha ah. Muddadii uu xilka hayay waxaa la sameeyey dadaallo lagu horumarinayo adeegyadaasi si loo daboolo baahiyaha sii kordhaya ee shacabka. Dhanka waxbarashada, waxaa la dhisay dugsiyo sare oo cusub oo ay ka mid yihiin Buruburu Days Girls Secondary School, Sheshafei Days Boys Secondary School, iyo Aresa Girls Secondary School. Dhismaha dugsiyadani ayaa sare u qaaday helitaanka waxbarashada, gaar ahaan gabdhaha iyo ardayda ka imaanaya deegaanada fogfog. Waxaa sidoo kale la kordhiyey fasallo cusub iyo meelaha macallimiinta iyo qalabka waxbarashada dugsiyo badan oo ku yaala Mandera East. Dhanka caafimaadka, waxaa la hirgeliyey barnaamijyo lagu taageerayo qoysaska danyarta ah si ay u helaan adeegyo caafimaad. In ka badan 2,500 oo qoys ayaa lagu daray caymiska caafimaadka ee NHIF, taasi oo u sahlaysa inay helaan daaweyn iyo adeegyo caafimaad oo tayo leh iyaga oo aan la kulmaynin culaysyo dhaqaale. Biyaha iyo beeraha ayaa sidoo kale ahaa meelaha muhiimadda la siiyey. 100 qoys oo ku nool hareeraha webiga Dawa ayaa ka faa'iidaystay mashaariic waraab iyo taageero loogu fidinayo beeralayda. Waxaa la qaybiyey matooro biyo dhaamin ah si loo kordhiyo wax soo saarka beeraha loona xoojiyo sugnaanta cuntada ee deegaanka. Dhanka korontada, dhowr tuulo iyo degmo muhiim ah ayaa markii ugu horeysay heleen adeegyo koronto iyadoo loo marinayo mashruuca Rural Electrification Program. Korontada waxay fududeysay ganacsiga, waxbarashada iyo adeegyada bulshada, waxayna kor u qaaday horumarka guud ee deegaanka. Amniga iyo maamulka dowladda, Hon Cumar Macalin wuxuu door muhiim ah ka qaatay dadaallada lagu hirgelinayo Arabia Sub-County. Tallaabadan ayaa shacabka u sahlaysa inay si dhow u helaan adeegyada dowladda, waxaana la dhisay xarumo maamul iyo kuwa amni oo kor u qaaday xasiloonida iyo adeeg bixinta. magacaydu waa Farxi Cumar oo ka imaaday Buula Barwaaqo. waxaan bartay gaari wad driving aan bartay. waxa ay baray CDF Umar Saalax ay baray. waxaan u mahad celinayaa Umar Saalax oo gaari baray iyo macallimiintii iyo dadkii ka qayb qaatay kulli. magacayga haddaan ku bilaabo waxaa la yidhaahdaa Khadija Cabdullaahi Maxamed from Buula Jamhuuriya. waxaan halkan u imaadnay oo iskugu imaadnay anagoo wada ardayda Madmo Driving School. maasha Allah, aadaan u mahad celinaynaa xafiiska CDF Mandera East oo naga qaba xalijirina siiyeen opportunity-gan aan anaga ka qayb galno, maadaama ay ayna siiyeen driving waayo awal hore guriga iska joogni waxba ma haynin idol iska haynin, especially for us ladies. haddana waxaan leenahay alxamdulillah, waxaan had farsamada annaga gacantaana ugu samaysan karno, magaalkeena anaga gal karno, anaguna inaan tuugaynin alxamdulillah. marka waxaan leeyahay Umar Saalax, thank you so much and I really appreciate you a lot. Thanks a lot. magacaydu waxaa la Cabdi Bishaar Xuseen, waxaan ka imaaday xaafadda Buula Jamhuuriya. marka maadaama aan horaan shaqlanahay, waxaan galay Madmo Driving School oo ay iga bixisay Mandera CDF, Mandera East CDF. marka hadda maadaama maanta laysankeed aan qaadan raba, waxaan diyaar u ahay inaan shaqaysto. marka waxaan u mahad celinayaa Mandera East MP Umar Saalax, maadaama as maanta wixii ka dambeeya aan gacanteed ku shaqaysan kara oon meel alle meesha rabaan aan ka shaqaysan kara. Daan Maxamed Faarax from waxaan ka imaaday Buula Embiya. waxaan ka mid ahaa ardayda oo Umar Saalax sponsor gareeyay oo driving from Madmo ka bartay. waan u mahad celinaynaa MPgeena siduu noo garab qabtay anagoo waxba hayna hadda barani. maantana waxaa ilaaw ku mahadiyay intaan furaha qaadanay gaariga waan wadan karnaa. saas darteed waxaan leenahay Umar Saalax aad u mahadsantahay. Cabdiqaadir Kunay maamulaha Madmo.
29 noo keentay CDF Mandera East Honorable Umar Sala his office maanta ayaan guddoonsiinay waxaan aad ugu mahadcelinayaa maadaama uu ahaa ninka aad oo noo caawiyo yahay Umar Sala oo noo keenay ilaa 34 cunug oo bishii la soo dhaafay dhanaan tababarayni maanta ayaan gabagabada kusoo dhameynay barnaamijka ayuu guddoonsiinayna shahaadadooda waxaan u mahadnaqayaa mheshimiwa my area MP Umar Sala oo nasiya qandaraaskaas ilaa 34 cunug oo tababarayni marka aad u mahadsan yahay dhalinyarada iyo haweenka ayaa ayaguna ka faa'iidaystay barnaamij awoodsiina oo lagu taageerayay tababarida xirfadaha ganacsiga yaryar iyo fursadaha shaqo abuurka. Boqolaal dhalinyaro ah ayaa la siiyey tababaro kala duwan si ay uga qayb qaataan kobcinta dhaqaalaha deegaanka. Sidoo kale, dhinaca diinta iyo bulshada waxaa la taageeray xarumo waxbarasho iyo kuwa diimeed oo ay ka mid tahay Al-Amal Islamic Center ee Shafshafay, taasi oo kor u qaaday adeegyada waxbarashada diinta iyo isku xirnaanta bulshada. Guud ahaan muddadii u dhaxaysay 2017 ilaa 2022, Hon Cumar Macalim wuxuu ka tagay dhaxal horumarineed oo ka muuqata qaybo badan oo Mandera East ah. Mashaariicda waxbarashada, caafimaadka, biyaha, korontada, beeraha iyo maamulka ayaa weli loo tixgeliyaa qaar ka mid ah waxqabadkii ugu weynaa ee deegaanka laga hirgeliyey muddadaasi, kuwaasi oo saameyn xooggan ku yeeshay nolosha kumanaan qof oo reer Mandera ah.